السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dib baynu isugu soo noqonay ardayda ku xiran koorsada network essential. cashirkeena ugu dambeeyay koorsada wuxuu ahaa local networkska. imika cashirkanaga wuxuu ku saabsan yahay network documentation markii aad maqasho waa wax la soo ururiyay balaan loo sameeyay dabeetana ma aragtay muxuu ahay qaabkay u shaqeyn lahaayeen yani maxaa la yiraahdaa ay diyaarsan yihiin way marka qaybta ugu horeysa ee aanu ku hordhacayno waa yani deviceska magacyadooda iyo address. tusaale markaad tahay network engineer markaad tahay waxaa laga doonayo waxa waaye inaad garanayso network documentation, yani ismaha la doonayo in qalabka lagu xiro inaad documentation aad samayso oo aad qorto dabeetana ma aragtay qalabka loo baahan yahay iyo fiilooyinka loo baahan yahay iyo naqshada qaabka loo sameynayo iyo waliba IP addressyada iyo wixii oo dhan inay ku diyaarsan yihiin waa shaqo aad iyo aad u qurux badan weey. marka waxay ku xiran tahay as a network yani qaabka network uu growth u sameeyo inay size cabir ahaan dhismaha cabirkiisa qaabka ma aragtay uu sameeyo network inuu baaho iyo complexity-ga hadba inuu fudud yahay ama inuu adag yahay, yani ama inuu yahay simple network area inuu yahay network yani maxaa la yiraahdaa waxa la yiraahdaa soho kuwa guryaha yani oo kale kuwaas waa simple. complete markuu yahay mid ma aragtay complex ahna waa markii maxaa la yiraahdaa buildinada ma aragtay maxaa la yiraahdaa laba building la isku xirayo kale between two lanes oo kale marka la isku xirayo firewall-ki iyo waxyaabaha soo dhan iyo routing-ki iyo waxa soo dhan baa imaanaya meesha maanta. marka waa processing-ki iyo waxa soo dhan markii IP address laga waramayo. okay, it becomes wuxuu noqonayaa increasingly important mid sii baahaya qaab muhiim ah ku sii baahaya kaasoo well planned ayaa ma aragtay mid la qorsheeyay logically organized si aqliyan ah la isku habeeyay and well documented, yani waa tan hadda ka soo waramayo yani waa well organized way logically organized shakhsi baa soo diyaariyay shakhsi baa ma aragtay ayaa naqshad dejiyay. marka organizationska waxay badanaa ma aragtay sameeyaan waxa waaye ayagoo diyaarsan oo wixii ayagoo diyaarsan ma aragtay addressyadii iyo ma aragtay iyo agabkii magacyadoodii kulli macallin end userska iyo waxyaabaha ayagoo diyaarsan waxoodo dhan baa markaas ay soo qortaan dabeetana waxa loo dhiibayaa network engineer-ka loo dhiibayaa. this tani provide waxay bixinaysaa guideline ayay bixinaysaa marka and rules iyo xeerar dadkaasoo can be used loo isticmaali karo by network loo isticmaali karaa. marka wuxuu sameynayaa marka personal yani wuxuu support gareynayaa shakhsigii hawshii ku dhex jiray ayuu support gareynayaa. marka computer operating systemska waxaa kamid ah marka tusaale loo soo qaatay Microsoft Windows oo kala kamid ah Windows-yada Microsoft ay soo saartay waa la soo maartay programming waa la soo programmiyay instructions bay leeyihiin saas raac baa lagu leeyahay. waxaa kaloo kamid ah yani maxaa la hadhow sida hadda ma aragtay imika markaad printerkaaga aad ku xireyso computerkaaga markaad ku xireyso waxa waaye mu baahnid inaad yani maxaa la yiraahdaa markaas adigu kaliya hawsha laga baahan yahay waxa waaye inaad isku xirto laakiin operating system aan gaar u sameeynaya ama drive baan u sameeynaya inaad dhahdo ma aha, waayo waa wax network documentation hore u dhacay weeye ba address planning iyo device nameski waxa soo dhan hore loo soo yani logically organized way. okay, device nameska must be waa inay ahaadaan unique kuwa gaar qaas ah in magac kale aan cid kale la wadaagin inuu ahaado and have inuu yeesho a consistent format, yani format joogto ah markaasi inuu yeesho kaasoo xambaarsan micno wax ku oola, yani shaqada uu qabanayo macnaha shaqada uu qabanayo inay tahay shaqo gaar ah. tusaale hadda switch-ka kale muxuu sameeyaa switch-ka saan soo sheegnay wuxuu sameeyaa network ayuu baahiyaa. router-ka waa soo sheegnay muxuu sameeyaa router-ka wuxuu sameeyaa isku xiraa laba network ayuu isku xiraa. waa sababta router-ka waa sababta
keenaysa in uu internet dhasho inuu internet dhasho waa sababta keenaysa routerka keenaya soo ma garan between two network isku xiraya macnaha layer 3 buu wax ku maartay ku shaqeeyaa layer 2 na ku shaqeeyaa midkan kale switch kale yiraahdo okay firewall ko kale muxuu qabtaa firewall ku wuxuu jack up ku sameeyaa cidda traffic uu jack up ku sameeyaa income traffic iyo outcome traffic ayuu jack up ku sameeyaa cidda gudaha soo galaysa cidda ka baxaysa network-gaas ayuu ogaanayaa okay waxa kale oo kamid ah hubska kamid ah oo hubska isagu wuxuu sameeyaa inuu baahiyo network uu sameeyo network uu baahinaya sidaa darteed marka way shaqooyinkooda ayaa kala duwan micna gaarayna xambaarsan yihiin shaqooyinkooda this can help uu caawin karaa to determine si uu go'aamiyo device type nooca aalada ay tahay function shaqadu nooca ay tahay location iyo meesha uu ka shaqeyn lahaa iyo sequence number based on the device name iyo number iyo positionka numberka uu kaga jiro yani waa number baa lagu dhufanaya number waxa loo sameeyaa waxa la yiraahdo number label ama labeling of number ayaa loo sameeyaa macnaha numberkaas tusaale aalada tani shirkadda ay leedahay switch oo kale ka soo qaad switch 1 iyo switch 2 iyo switch 3 saasoo kale loo kala qaybinaya dhismahan shirkadda ay leedahay hal switch baa yaala dhismaha kale ku dhagan hal switch baa yaala marka switchka koowaad switchka labaad switchka saddexaad baa la leeyahay sidaas baa sequence number baa loo sameeyaa marka si aan la isugu qaldin weey waa maartay maxaa la yiraahdaa Cisco iyada ku soo dartay laakiin kuma aanay jiri jirin maxaa la yiraahdaa network documentation kan laakiin wax cusub oo aan hadda arkayo waa aniga waayo portalkii dhexdiisaan ayaan gudaha ugu jiraa website-kii e-learning ka ahaa ayaan gudaha ugu jiraa marka cidda doonaysa koorsadan inay barato network essential si bilaash ah waa self based way Cisco ay bixinayso anigu ku af Soomaaliyeynaya si bilaash aadna ku qaadanaysaa oo aan bartayada YouTube ka soo gelinayo marka IP addresses ka marka must also be unique to each device IP addresses waa inay noqdaan kuwa gaar u ah qalab kasta maxaa la yiraahdaa aalad kasta meesha taala inuu gaar u ahaado macnaha waxa la wada jeedaa IP address numberka yani class-ka iska daa waxaasna waynu gaari doonaa laakiin IP address numberka yani maxaa la yiraahdaa oo qaadan lahaa in the user device-ka waa inaanu la mid noqonin midka kale tusaale hadii la dhaho 192.168.10. maartay 100 hadii la dhaho midkaas qaatay laakiin midka kale wuxuu qaadanayaa hadii la dhaho 192.168.10.101 ama .1.01 uu qaadanayaa waa correct way saxanta laakiin hadii la dhaho 192.168.10.100 the same wuxuu noqonayaa marka IP address uu noqonayaa isma keenayaan marka taas darteed meesha waxa ka dhacayo inaanu network-gaasi aanu shaqeynin oo kan falsa uu noqdo marka maxaa la yiraahdaa sidaas darteed uu u baahan yahay yani different yani unique IP address unique inuu u baahan yahay oo isaga gaar ah the use isticmaalka of logical devices ka naming ka lagu sameeyo iyo sidoo kale addressing ka lagu sameeyo conventions koodu yani dadkaasoo are well documented يعني maxaa la yiraahdaa yani qaabka maartay tixanahoodu uu yahay si loo kala sooco oo loo kala garto waa kuwa well documented ah way can greatly simplify kuwa soo maartay simplify ka dhigaya shaqada fududeynaya of training shaqada markaas fududeynaya iyo sidoo kale network management-gana uu fududeeyaa qofka network administrator kana uu fududeeyaa wuxuu ka caawinayaa marka hadhow marka troubleshooting uu sameeyo kale ayuu ka caawinayaa when goorta problems arise marka dhibaatooyin ay dhacaan tusaale markay fiilada goodo maxaa lagu ogaadaa fiilada network baa down noqday go'day fiilada tusaale baawur baa kala jiray ama waxba ama maartay wax kala jiray fiiladu qaab baa lagu ogaadaa iyadana inay xaraaradeeda joogto signalka inuu joogo tusaale sidoo kale IP address kan waa la ogaan karaa waayo IP address kama shaqeynayo hadii fiilada go'san tahay IP address kama shaqeynayo wax maartay
halka slide ayaan 10 daqiiqo dul joognaa. Okay, inaan ku fahamsiiyaan rabaa muhiimadda aan ka leeyahay waxa waaye inaad fahamto network inaad fahamto adigoo concept buuxa haysta ayaad maartay ayaad u gudbaysaa CCNA-da waana ku fududaanaysaa qof kasta ee koorsadan qaata waxa huwaal ah inuu CCNA qaadan karo oo CCNA oo maartay qaadan karo markuu koorsadan dhameeyo waana ku balan qaadaya taas. Okay, marka waxay inoo mareysay yani maxaa la yiraahdaa haday fiila goodo fiilada waxyaabaha lagu ogaado fiilada inay go'day tusaale fiilooyin badan baa isku xirxiran fiilooyinkii mid kamid ah go'day mid kamid ah go'day sidoo ku ogaanaysa waa in label number ay leedahay waa taan hadda imika ka soo waramayno sequence number based inay leedahay way numberkaas oo laga aqoonsan karo fiilooyinka kale. sidoo kale waxa kale lagu ogaan karaa xaraarad ma joogtaa qalabka fiiladan ay ku xiran tahay signalkiisa ma jooga statuska la fiirinaya waxa la fiirinaya led statuska la fiirinaya led statuska waxa waaye waa nalka cagaaran ma jooga nalka hadii uu gaduud yahay micnuhu waa down uu dansan yahay fiiladu way dansan tahay ama fiilada iyadoo ku jirto haduu nalka uu down yahay fiilada way gubatay ama fiilada way go'day. Okay, tan saddexaad ee soo weelisay waxa waaye xaraarada fiilada ma joogtaa see lagu ogaan karaa xaraarada waxa lagu ogaanayaa socket baashan maartay maxaa la yiraahdaa madaxa hore ee fiilada RJ45 ama fiilooyinka kale noocay doontaba ahaato waxay leeyihiin wax la yiraahdo testers ayay leeyihiin qalab testers la yiraahdo ayay leeyihiin testerkaas la gelinaya ama telefoonka leelanka la soo qabanaya dawladda madaxa dambe laga gelinaya hadii uu kaco hadii ay xaraarada ay shaqeyso oo telefoonka soo kaco markaasi cilada waxa laga haystaa IP addresska cilada laga haystaa saasay noqonaysaa IP addresska in loo ogolaado inuu portigan maartay uu up ka dhigo markaan routerska ka waramayno waa ma fahantay inuu portigan up ka dhigo oo uu dabeetana maartay networkiisii uu kiciyo uu shaqeysiiyo. IP addresska sidoo kale ciladiisa waxa lagu ogaan karaa in la bingareeyo oo la ogaado inuu shaqeynayo in kale. Okay, markii oo dhibaatooyinkaas network markuu dhaco ayaa network documentation kan uu aad ku caawinaya yani wuxuu leeyahay the figure is simplified sawirka hoose ee maartay waa mid physical maartay topology of the second floor of building C the rooms are numbered waa ka gudbeena IP address wax buu sheegaya waa ka gudbeena sawirada ayaanu arki doonaa aan isla aragna sawirada marka. Okay, halkan waxa ka muuqda sawir baa ka muuqda sawirkan 1 2 3 waa 9 way 9 qol way dhismo oo 9 qol ka kooban way dhismahan 9 qol ka kooban qayb kasta waxa yaala computers ayaa yaala computers kan waxa ku xiran switches ayaa ku xiran soo ma garan switches ayaa ku xiran marka waxa loo sameeyay router one stick waxa la yiraahdo router on one stick waxa la yiraahdaa loo sameeyay kaas oo ku xiran ISP ga marka ku xiran shirkadda ku xiran waa sheekad dheer weeye macnaha sheekad dheer weeye markaan ku leeyahay waa sheekad dheer weeye. Okay, halkan routerkii baa yaala tusaale ka soo qaad halkan routerkii baa yaala halkan routerkii baa u yaala tusaale ka soo qaad marka maxaa la yiraahdaa core switch baa meeshan yaala core switchkaas wuxuu kala qayb core switchkaas marka maxaa la yiraahdaa wuxuu sameeynaya waxa la yiraahdo yani maxaa la yiraahdaa isaga noqon doona this one is the core routerka core ka noo ah yani midkan kale distributor ka noo noqonayo access switchka waa kuwa qolalka yaala marka this one is access switch yani runtii hadii oo aynu kari kareyno awoodeena ay tahay waynu sameyn lahayn si practical ah laakiin maadaama cashirka uu online yahay saan inaad ku fahamtaan rajeynaya halkan switch baa yaala 9 kooda switch baa dhigaya switchka marka maxaa la yiraahdaa waa cashirka oo dhan baa uu ku saabsan yahay kistan yar waa cashirka oo dhan kistan yar 9 kan qol buu ku saabsan yahay hawsha laga qabanayo 9 kan qol hawsha laga qabanayo ayuu cashirkeena dhan ku saabsan yahay. Okay,
and this one is the router kan wuxuu toos ugu xiran yahay ISP ga toos ugu xiran yahay tusaale ka soo qaad ISP ga ku xiran yahay ba okay this one is the core this one is the ISP waxa waaye shirkadii bixinaysay network-ga ISP barba ama hormuud oo kale ay tahay ba network hormuud baan ka soo qaadanay dabeetana router baan soo iibsanay router keenan hormuud shirkadda baalkeeda ku xirnay dabeetana waxaan rabnaa inaan baahino network-geena inaan baahino waxaan u baahanahay waxa la yiraahdo distributed switch waxa la yiraahdo ayaan u baahanahay kaas oo ah yani maxaa la yiraahdo switch very powerful ah noo baahin doono network ku sii baahin doono access switches-ka kale u sii baahin doono halkan waxaa yaala marka access halkan waxaa yaala distributed switch baa yaala distributed switch kan waxaa ku xiran fiilo ayuu siiyay kan qolkaas fiilo siiyay qolkaana fiilo kale ayuu siiyay qolkan kale ku soo hartay fiilo kale switch kana qaatay okay qolkan kale ku soo haray fiilo loo jiiday oo switch kana qaatay fiilaha haddana halkan ka soo baxday switch kana qaatay colorkan bedelaya halkan kale fiila ka soo baxday switch kan baa qaatay halkan kale fiila ka soo baxday switch kan baa qaatay halkan kale fiila ka soo baxday switch kan baa qaatay halkan kale fiila ka soo baxday switch kan baa qaatay marka sagaal switch sagaal maaragtay waa sagaal qol weey sagaalkii qol ayaan internet siinayna markan soo ma garan this one is the access kuwan access switch ayaa lahaa kana waa distributed switch marka waxay leeyihiin soo fiiri tusaale fiiladan baa go'day tusaale hadda fiiri meeshan fiila ka go'day tusaale ka soo qaad fiila hadda meeshan roof ka dhacday soo ma garan hal fiila go'day halkaas fiila ee go'day waxay sabab u noqonaysaa qolkan 202 inuu internetkiisa uu damo oo down noqdo ayay sabab u noqonaysaa ma garatay marka seen ku ogaan karnaa marka horta fiiladu korayo su'aal arkay iyadoo raacraacda baa la arkay laakiin waxa daran fiilooyinku markay bounding ay yihiin shirkadaha Soomaaliya ma sameeyaan ma fahantay shirkadaha Soomaaliya bounding group cable ma sameeyaan waa sababta keenaysa in fiilooyinka tuugada way iska jarjarato marmarka qaar ma garatay markay bounding ay yihiin ay isku wada jiraan fiilooyinku oo hab design loo sameeyay ay yihiin fiiladaas lagama dhex ogaan karo ilaa waxa lagu ogaan karaa inay leedahay name inay label leedahay labelkaas oo magac uu ku qoran yahay room 2 fiilada galeysay way room 202 fiilada galeysay waaye yaa lagu ogaan karaa oo dadkii halkan joogay markii maxaa yiraahdaa markasto computerkan uu ku xiran yahay switchkan computerkan uu ku xiran yahay switchkan dadka halkan joogay qolkan joogay network-ga everywhere kuwan bay u imaanayaan marka war network mid shaqeynaya war haan noo shaqeynaya adinka network ku ciyaaray warkaas baa imaanayo way ka soo tirade kuwan bay u imaanayaan war network waxa uu noo shaqeynaya adinka ku ciyaaray naga tagaday marka sida leeyihiin okay cilada iyagu haysataa maxay tahay ciladu iyagu haysataa waxa weeye marka fiila ka gooday Soomaal fiilada ka gooday marka hadii fiiladoodii loo toosiyo markaas network-ga uu imaanaya laakiin in la toosiyaa fiiladu waxay u baahan tahay documentation ay u baahan tahay network documentation hore loo hayay yani shirkadaha ma sameeya shirkadaha Soomaaliya ku yaala ee internet-ka bixiya ma sameeyaan wax network documentation ah sababtoo ah hadii dhismo internet ay siiyaan oo cilad ay qabato 2 toddobaad iyo bil baa laga dawareegaya waa wax maalin lagu sameyn karo ayaa toddobaad iyo bil lagu dawareegaya sidaas darteed marka meesha waxa kaaga cad inaanay maartay maxaa la yiraahdaa rag active inaanay meesha joogin baa kaaga cad okay marka maxaa la yiraahdaa magacyada waa waxyaabaha maartay lagu garan karo troubleshoot cilada markay jirto waxa kale oo kamid ah IP address-ka waan soo sheegay IP address baa halkan ka muuqda marka sagaalkan qol aad arkayso network baa ku jira network-goodaas maxaa la yiraahdaa bal adaan ku su'aalayaa sagaalkan qol network bay u baahan yihiin maxaa loo baahan yahay qalab noocee loo baahan yahay waa network yani maxaa la yiraahdaa waa su'aal kamid ah يعني عشرة imika aynu qaadanayno network documentation waa waxyaabaha la su'aalayo yani sagaalkan qol maxay u baahan yihiin network u baahan yihiin waa sagaal qol waay
waxyaabaha ugu horeeya la isweydiinaysa waxa waaye maxaa loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay waxaa ogaanaysaa horta size-ka ogaanaysaa size waxa waaye inta qol ee dhismaha ku taalo intaas qol maxaa kuwee u baahan hadhow talana waxaad ka dhigin kartaa villaane iyo waxaasaad abuuri kartaa si loo yareeyo maaragtay qarashka badan ee switchka galay meeshii laga soo iibin lahaa 9 switch ayaa 3 switch laga soo iibinayaa isla 3daas switch ayaa waxaa laga dhex abuurayaa 6 virtual switch ayaa laga dhex abuurayaa ma fahanaysaa 6 switch maxaa la yiraahdaa virtual interfaces ayaa laga dhex abuurayaa okay villaane waxa la yiraahdo waanu gaari doonaa cashirkaas marka yani waynu ka sii soconaynaa topology-gaas yani maxaa la yiraahdaa ee la sawiray marka imika waa qalabkii iyo waxyaabahaas buu soo bandhigayaa oo loo baahnaan lahaa inay simple marka sida fudud network consist of wuxuu ka kooban yahay a few computers ayuu ka kooban yahay it is easy waa fudud yahay for you adigu kuu fudud yahay to visualize inaad muuqaalayso oo aad naqshadayso how all the various components connect sida la isugu xiri lahaa aaladahaas oo dhan naqshadooda ayay adiga ku fudud as network growth sida network-ga uu markaasi u baaho wuxuu noqonayaa mid dhib badan ayuu noqonayaa in la track gareeyo oo la ogaado yani maxaa la yiraahdaa location of each component qalab kasta meesha yaalaan in la ogaado soo ma garan marka network documentation haddii muuqaalkayaga maaragtay xitaa maaragtay haddaanay jirin shirkadaha inaanay haysanin wax network documentations ah muuqaalkayaga haddii uu gaaro ama maaragtay asxaabta cashiradan imika ku xiran haddii aad garanaysaan dad markaasi shirkadahaasi ka agdhow ee Soomaaliya ka jira network documentation waa waxyaabaha ugu muhiimsan ee shirkad ay ku ogaan karto يعني maxaa la yiraahdaa yani cilada markaas jirta soo ma garan cilada jirta iyo aalada ciladaas markaa ku dhacday yaa lagu ogaanaya sababtu maxay tahay maadaama shirkadu ay bixinayso adeeg badan ay bixinayso ama customer badan bay leedahay macaamiil fara badan bay leedahay network siisa marka macaamiisheedii baa la soo xiriiraya inta oo qofka yani maxaa la yiraahdaa qofkii oo technician-ka ahaa ee farsamada qaabilsanaa ee shirkadda farsamada u qaabilsanaa intuusan imaaninba xaafadda intuusan imaanin oo network-ga ciladiis aanu bixinin waa in ragga network engineers-ka ee shirkadda markaas ay leedahay waa inay iyagu garan karaan network documentation-ka waa inuu u diyaarsan yahay network documentation-kaas ayay ka raaci doonaan cilada siday u jirto ayay ka raaci doonaan ciladu haddii aanay mid physical ah haddaanay ahayn haddii logic ay tahay IP address oo kale kor iyo hoos waa ogaanaysaa fiile inay gooday iyo inay wax kale yihiin waa ogaanaysaa waa IP address-ka wax walba sheegayo IP address network aan lahayn ma shaqeeyaba oo midkan modem router-ka oo xaafadaha yaala IP address uu leeyahay soo ma garan isaga hadana IP address uu sii bixiya DHCP server waa isaga hadana yani switch ah oo network uu sii baahiya Ethernet LAN ports uu leeyahay marka hadhow qofka marka network technician-ka markuu yimaado uu yaqaana ciladii ma dhahayo qofka ciladu maxay ahayd kan maxaa isagoo shaqadii ku wareerin yani oo waayo maartay marmarka qaar yani mashquul fara badan baa jira yani soo jeedinteedu waxay ku socotaa markaasi shirkadaha bixinaya network internetka shirkadaha bixinaya dadkan technicians-ka ee farsamada u qaabilsan saacad dul istaagsan network-ga siday u xaliyaan waxay u baahan yihiin waa network documentation ay u baahan yihiin oo ay ka soo qaateen maaragtay network administratorska shirkadda ay leedahay ciladani loo sheegay ciladan horaa loogu sheegay la dhaho cilada meeshaas bay ka jirtaa tag meel kale shaqo ka qabanin ciladaas bixi ciladaas uu bixinaya isla markiina meel kale cilad ay ka dhacdo aadaya that's the symbol way fududahay marka network mar walba buu baahana shirkadda haddii ay tahay network bixinayso sida halkan maaragtay ka muuqata it becomes wuxuu noqonayaa more difficult mid adag buu noqonayaa to keep track in lala socdo the location yani position-ka of each component ee aalad kasta
how each is connected mid kastaaba sida loogu xiray network wired networkska require waxay u baahan yihiin lots of cabling fiilooyin badan ay u baahan yihiin waa tan hadda ka waramayo oo qolashaana ka soo waramay 9 qol hal fiila ka go'daba hal qol ma ogaanay marka fiiladay tahay fiilada marka bounding way fiiladu yani maxaa la yiraahdaa group of cables ayay ku dhex jirtaa ya ama meel sare saaran tahay group of cables ay ku dhex jirtaa ma ogaan kartaa maxaa u baahan tahay waa inaad horta aad haysatid label ina haysatid way number of label ina haysatid network document ina haysatid way markaas aad ogaanaysaa waxa dheer ileen fiilada label ay leedahay labelkaas aad soo qabanaysaa dhacwa kaasa markaas soo qabato fiilada ay hagaagsanaysaa ma bedelaysaa iyada dhan that's the symbol and network device ka marka to provide say u bixiyaan connectivity yani maxaa la yiraahdaa connection net internet say u bixiyaan for all network hosts qalab kasta network ku shaqeynaya markaas diagram marka providers wuxuu bixinayaa an easy way hab oo maartay fudud to understand loo fahmi kara how sida the devices aaladahu in a large network are connected sida la isugu xiray marka network maartay ayuu ku muujinayaa when networks ka marka are installed la install gareeyo ama la isugu xirxiro ama la isu xirxiro a physical topology marka diagram is created waa la abuuraa to record si uu record gareeyo oo uu aruuriyo where each host is located meeshii la dhigi lahaa hosti walba marka macnaha maxay tahay warkaan aan isla dhuuxno warkaan wuxuu u baahan yahay in si fiican loo kala qaado ayuu u baahan yahay markii physical topology ga markii maaragtay network la install gareynayo waxa loo baahan yahay markii hore inaad samayso waxa la yiraahdaa physical topology inaad samayso physical topology ga inaad sawirto backtracer ma ku dhigaya dadka network engineerska inteedan network inteedan shirkad maaragtay aad u shaqeynaysaan maxaa la yiraahdaa dhismaha la rabo in internet kala geeyo inaadan iska ordino aadan dhihin intaasay u baahanta aad dhehen inaad tagto meesha aad dhahdo inaad tagto meesha oo intay u baahan adiga aad qorqorato dabeetana aad la tagto backtracer ka la tag kadibna ka shaqeysii documentigana qoro backtracer ki markii aad rabto inaad inuu network-gan shaqeynayo shaqada ay fududaanaysaa adiga ku fududaanaysaa network engineer adiga ku fududaanaysaa soo ma garan shaqada adiga ku fududaanaysaa sababtoo backtracer ki waxay ku shaqeeyeen okay waa ka soo tagtay qalabkii shirkadii ay soo iibsatay waa isku xirxirtay dadkii network technicianski ayaa isku xirxiray adiga waxa lagaaga baahan programming laga rabo marka inaad programming ku sameeyso qalabkii la keenay shirkadda inaad programming ku sameeyso ma isdhibaysid documentiga wata isla markii maartay documentigaagii iyo laptopkaagii iyo maxaa la yiraahdaa console cableskaagii isku wadataa wixii baad xalinaysaa marka waa easy waa wax walba easy laga dhigay Cisco waxa way dadaashay marka the physical topology diagram also shows wuxuu ku tusinayaa where halka the wiring is installed fiilooyinka xitaa halka lagu install gareyn lahaa ayaad ogaanaysaa and the location is maxaa keenay waxaad arkaysaa rack baad arkaysaa ee fiilooyinkiisi isku dhex qasan yihiin iyo qalabkiisi ay isku dhex qasan yihiin maxaa keenayo waa bilaa balan weeye diagramki marka hore sita physical ma ahaan looma sawirin looma qurxinin loogama fikirin waa la iska soo iibiyay waa la iska dhex dhigay fiilada waa la iska soo jiiday waa lagu xiray that's wrong way taas way qaldan tahay haduu cilad baa iman karta soo ma gar waxaan waa gacan ku sameys bini aadam sameey cilad baa imaanaysa ma ogaan kartid marka cilada halkay ka jirto ayaan way ogaanaysaa laakiin waqti badan ay kugu qaadanaysaa waqtiga kaaga lumay marka wuxuu soo representation ugu sameynayaa marka even inta such-as waxa kamida symbolska kamida or ama iconska kamida to represent la soo bandhigayo the different devices waa tan hadda ka waramayo backtracer ka la tago oo yani topology ga dhis markaan ku leeyahay hadii uu ku shaqeeyo markaasna waaba shaqeeyay qalabkan dhismaha shirkaddan ay keysatay iyadan qasidaas ugu programming marka waxa indie deviceska waxa uu kala qaybsanaysaa intermediate devices iyo indie devices iyo network medias waa point aad iyo aad muhiimsan waaye
aniga qudhay nafta aniga qudheedu waa yani point aad iyo aad u muhiimsan waaye anigu anfacaya adigu ku anfacaya qofka imika network engineer-ka ah shirkadaha network internet-ka bixiya ka shaqeynayo ayuu anfacaya markii hore indie devices-ka loo isticmaalay waa isweydiinaysaa horta markii dhismaha lagu keeno dhismaha uu intaasoo qolal uu ka kooban yahay qol kastaana qolo gaar qolkan uu yahay lab qolkan uu yahay pharmacy qolkan uu yahay maaragtay qoladan operationka qolkan uu yahay maaragtay meeshan oo maxaa yidhahdaa yani meesha customer service-ka okay waxaa loo baahan yahay isweydiinaysaa qalab noocee weeye qalabkan isticmaalaya network-ga taleefano noocee waaye yani maxaa la yidhahdaaye computer noocee weeye waxaasoo dhan aad isweydiinaysaa ma laptops ba ma maaragtay computers ba computerada desktop ba ma printers ba ma id phone ma loo baahan yahay waxyaabahaasoo dhan inaad qorqorataa la rabaa way jirtaa sax waa la qorqoraa oo shirkadda marka la tago iyada kaa qorqoraysa maxaa u baahan tahay intaas waaye kan waaye waxaas baad adigu marka laga qoraya laakiin as a network engineer ahaan waa inaad adigu jaabkaaga gashato oo taas aad ku fikirto mar walba okay intermediary deviceska marka waxaa kaloo ka mid ah wireless routerska kuwan guryaha modem routerska ka mid ah LAN switchka ka mid ama access point aan dhahno waa wireless routerska waa access pointiga okay LAN switchka ka mid ah waxaa kaloo ka mid ah routerada ka mid ah multi-layer switchka ka mid ah oo la yiraahdo core switch ayaa la dhahaa waxaa kaloo ka mid ah firewallka ka mid ah network mediaska ayaa ka mid ah waxyaabaha loo baahan yahay ee aad isweydiinayso markaasi halkan muuqaal baa ka muuqda topology naagto topology macalimadan topology-ga ayay sawirtay waa saddex dhismo internetkiisi waaye maanta network-giisi building 1 iyo building 2 iyo building 3 marka network-gaas ayaa sidaas la isugu xirxiraya bal haddaan tagno back tracer-kan isla tagaynaa saan u ogaano maadaama maxaa la yidhahdaa ma gudbinayo waxa waa ishiina aragtay ma gudbinayo waxaan isla tagaynaa back tracer-ka back tracer-kii aan soo furmay iminka marka saddex building ayaan rabnaa inaan network-giisi aan sameyno halkan waxaa yaala switch 1 oo switchka buildingka koowaad switchka labaad iyo switchka saddexaad
marka waa saddex network waaye oo kala madax banaan. okay waxaan soo qaadanayaa waxyaabaha isweydiinaysa waxa waaye meeqa building waa horta inta looga baahan yahay network-ga. saddex switch baa soo qaadanay, saddex switch loo baahan yahay. computerada ku xirmayo waa inta saddex waxa ku xirmaysa saddex computer, kan saddex computer baa ku xirmaysa. okay kan saddex kala ku xirmaysa kan. okay kan waxa ku xirmaya telephone kan, IP phone kan, iyo waxa ku xirmaya iyo hal computer iyo maya server iska daa iyo hal computer kala ku xirmaya. soo ma garan marka IP phone kaas ku xirmaya. okay marka hadda waxaan sameynaynaa waa isku xirxireynaa. marka fiilooyinkii waa marka hadda loo baahan yahay. fiilooyinkii baan ku xirxirnay. wax configuration oo IP address configuration ma sameynayno, cashirka xiga waaye. maxaa la yiraahdaa logical maxaa la yiraahdaa yani network topology-ga. markaas IP addressing kan sameyn doonaa insha Allah. hadda kaliya waan isku xirxirayaa, waan diyaarsanaynaa. kaliya waxaan sameynayaa boortigan down-ka ayaan soo shidayaa. wuxuu u baahan yahay in fiilada la geliyo oo la daaro. u baahan yahay fiiladaas in la geliyo. waa soo kacay, uu soo shidmayaa. okay network-geena waa maaragtay as a physical ahaan wuu shaqeynayaa, as a logic ahaan laakiin ma shaqeynayo. logic waxaan kala jeedaa wax IP address ma lahan computerdan. haddii aad isdhahdo ka shaqaysiina waa kana maaragtay wax fariina ma diri karo. wuxuu leeyahay no functional ports, ma lahan logic IP addressing ma lahan. markaas waa saddex building waaye internetkoodu. haddii aad doonto color baad saari kartaa. qolkan waa maaragtay building 1 waa kana. building 2 color kalaan saaraynaa. building 2 color kalaan saaraynaa. waxaan ka dhigaynaa yellow. building 3 waxaan saaraynaa colorkan okay marka waa sidaas. cashirkeena maanta halkan ayuu ku eg yahay. waxaynu kaga warramaynay qaybta ugu muhiimsan ee network engineer waliba ay muhiim ay tahay, nafteedana muhiim ay u tahay as a network engineer. iyo mid kasta arday ah iyo mid kasta network engineer ay muhiim u tahay network documentation. inta aynu cashirkanaga xigta maalinta xigta aynu ka kulmi doono waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo.